Halkani waa warbaahinta Twag Media. Waxaad ka heli kartaa wararka dalka iyo dibadda. Fadlan ku soo biir channelkeena oo subscribe saar, sidoo kalena gambaleelka ruji si aad ula socoto macluumaadka aan idiin soo gudbinayno. waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. dhegaystayaal, dhirtu waa nolosheenna. waxaa allaha u naxariistay laga hayaa gabyaagii weynaa ee Cali Afyare la odhan jiray, isaga oo ku soo koobayay kaalinta jiritaanka aadanaha ay dhirtu kaga jirto guud ahaan, gaar ahaanna waxyaabaha Soomaalidii reer miyiga ahayd ay ugu filayd. Cali iyo raggii la da'da ahaaba waxay ka soo jeedeen bulsho degaankeeda dhab u tiqiin, iyada oo buugaag iyo jaamacado toona aan aqoontaas ka raacan. waxay waaye aragnimadu bartay xiriir adag inuu ka dhaxeeyo dhirta, dadka, roobka, cimilada, xoolaha la dhaqdo, cidoodka iyo dugaagaba. meeshii ay dhirtu ku badan tahay roobka ayaa ku bata, meeshii ay ku yar tahayna wuu ku yaraadaa. halkii ay dhirtu ku yaraato, cimilada ayaa ku xumaata. dharaartiibaa kuleyl aad u daran loogu adkaysan waayaa, habeenkiina gowraha dhinaca dhulka lala dhigi waayo ayaa loogu go'aa. meeshii ay dhirtu ku yaraato, abaaraha ayaa ku bata, dabadeedna ha la dhaqdo ama duurjoog ha ahaadeene xoolaha ayaa ku baaba'a. halkii ay ku baaba'aanna dadka ayaa ku silca. cad iyo caana wixii lagu qabi jiray baa lagu diimaa, markaas baa yar iyo weyn cudurrada loo wada nuglaadaa, noloshuna intay cidhiiri gasho tarab loo leedaa. sababahaas dartood Soomaalidii hore dhirtu lama fududayn, oo inay wax lagama maarmaana ku qabsanaysa mooye geedka cayaayir isagama goyn jirin, weliba midka ay wax dheefka ku og yihiin. cimilada oo ay wanaajiyaan ka sokow, wax badan ayay Soomaalidu dhirta ku qabsan jirtay. kollay aniguna ma suurayn karo la'aanteed siday u noolaan kareen. tusaale ahaan, aqalkii ay ku hoyan jireen iyo wixii hoos yiilayba dhirta ayay ka soo jeedeen. rarada iyo jaadadkeeda kala duwan iyo waxa lagu mariimo, udbaha waaweyn iyo kuwa yaryar, iyo waxa lagu aslo, dhigaha, weelasha wax lagu cuno sida xeerada iyo fandhaalka, kuwa biyaha sida haanta iyo kalaxa, kuwa caanaha lagu maalo ama lagu lusho ama lagu dhamo ama lagu dhigto sida haanta iyo haruubka, dhiisha iyo biraha, xargaha sida dawliska iyo dabarka, dhafarka iyo dhagaatiga, qabaalka, gadowga, qulucda, ubbada, qudaha, kasha iyo mooyaha, kurta ama kurbinta, looxa iyo anqaasta, usha, masafta. intaas iyo in laga yaabo inay hadda iga maqan tahayba geedaha iyo mayraxdooda ayay ka samaysan jireen. waxaa kaloo waxyaabihii ay dhirta ka dheefi jireen ka mid ahaa midhaha markay aaranka tahay ay bixiso oo ay ku baahi beeri jireen. weliba qoysaska xoolaha ku filan aan lahayn intay midhaha qaarkood xabaashaan oo kaydsadaan bay jilaalada ku soo barbixi jireen. waxaaba la xusuusan yahay beela idil oo inta colgalay xeryaha u madoobeeyey ama bartoodii ay abaari dhaafisay, dabadeedna ku cayntay midhihii badnaa ee geedaha ka bixi jiray, sida hohabta, midacaska, dhafaruurta, mareerka iyo cibta, gomashaaga, lajiidaha, qamboobta, goonka ama gocosada, goosayga, xamurka, bardaha, quulaha, xabkaha iyo qaar kale. dhinaca kale, dhulka Soomaalida oo guud ahaan cimiladiisu ay kulushahay darteed, maalin weynta dadka iyo xooluhuba geedaha ayay harsan jireen, oo harkooda qabow ayay milicda kaga gaban jireen. geedka hooska lihi wuxuu u ahaa madal iyo xafiis la isugu yimaado oo odayadu ay ku shiraan, dadka ishaya ay ugu garnaqaan, hadbana ay ka soo saaraan go'aamada ku lugta leh siyaasadda ay tolka ku maamulayaan iyo col iyo nabad kuwa la dariska ah waxa kala gudboon. iyada oo sidaas ayaa waxaa marmar la arki jiray geed weyn oo meel ban ah ku yaal, mid kale oo la harsadaana aanu ka agdhoweyn. kaas harsigiisa ayaa waxaa ku soo tashan jiray hadba ninka sadcaalka ah, kooxda safarka ah
aroorka ceelka ku socda iyo midka ka soo fulay dirkaba waxaa haddaba markii waa la joogaba la arki jiray nin kibirka iyo isla weynidu ay maantiraan oo geedka sidaas uunka uga wada dhexeeya isagu lihii u sheegta inta kale iyo xoolahoodana uga dhaaran jiray raggaas waxaa laga xusi karaa mataan ciideed oo sheekooyinkiisa la yaabka lahaa aan hadda ka hor halkan idinkaga soo tabiyey waxaa isna ka mid ahaa qoorwaa jaamac nin la odhan jiray oo geed lasoo wada tamadiyo inta calaamad ku dhigtay suntaale ula baxay waxaa kaloo ka mid ahaa cartanboos oo geed dhuura oo harac ah koorihii faraskiisa dusha ka saartay markaasna inta isku xudumay dadkii kale ka sheegtay gadaalkii waa ninkii taladaa eeday ee gabaygiisii kibirka ku saabsanaa uu Ismaaciil Mire ku soo dari jiray cartan dhuurta kooraha markuu kor ugu laalayay garaad faarax dhay iyo karuur kala macaanaayee misna kala qaraaraa dhunkaal kulankii goobeede ragow kibirka waa lagu kufaa kaa hala ogaad sidaan soo sheegay meeriskii ahaa dhirtu waa nolosheenna ee aan barnaamijka ku bilaabay waxaa iska lahaa Cali Cilmi Afyare oo jeer ka tirsanaa maansayahanadii Soomaalida ee qarnigii 20aad qaybtiisii dambe kuwii ugu magaca dheeraa wuxuu dhextaal u ahaa geeraar 1970nadii uu tiriyey kaasoo uu ku soo qaaday qaar ka mid ah faa'iidooyinka ay dhirtu leedahay inta ay Soomaalidu taqaan wuxuu ku bilaabayaa sida maalinta kulul harkeeda loogu naaloodo gowraha habeenkii siday gaashaan uga noqoto miraha markuu nurku samaado laga cuno iyo jiilaalada siday xooluhu ugu dhacartaan wuxuu yidhi adigoo dharandhoorayoo daraartu ay kululaatayoo dhafoorkaaga iyo jiirka dhididku uu qulqulaayo dhirtu waa nolosheenna qabow dhuuxa laftaada iyo dhogortaada dilaayiyo dhaxantay kaa celisaayo dhambal aad huwanaysiiyo darbay ku noqotaayoo dhirtu waa nolosheenna marna dhuuni laquutiyo dhuguc aad u bislaatiyo miray ku dhalayaanoo dhibtu kaaga hadhaayoo dhirtu waa nolosheenna dhulkoo roobku ka raago abaar la isku dhammeeyo dhaameelkoodii iyo xaygu dhimbishii ku qabowday dhaayinkay bixiyaanba reerku ku dhacartaayoo dhirtu waa nolosheenna isaga oo weli wax dheefka dhirtu leedahay kolba qaar xusuusanaya ayaa Cali Cilmi wuxuu intaa ku darayaa sida loogu baxsado marka xoolaha xariyaha looga dhigo ee ood dheer oo aanu uga soo boodi karin dugaagii cuni lahaa lagaga gudbo wuxuu haddana ku xujinayaa daawada geedaha qaarkood loogu irkado weelasha qoysku uu ku adeegto ee laga qorto iyo waayada ay roobabku israacaan sida bilicdooda ay indhuhu ugu doogsadaan wuxuu yidhi dhafka hawdka iyo soolka hadday dheer tahay oodu dhoolla weyne libaax iyo dhurwaagii wax cunaayiyo dhowrtu soo mari mayso oo waa dhis aan laga maarminoo dhirtu waa nolosheenna marna dhuub la xideeyiyo daawo weeye dhabtiiyo adoo dhaawac ku gaaray baad daymo soo gurataayo irbadda gaalku dhigaayiyo takhtarkaas ka wanaagsanoo dhirtu waa nolosheenna dhoon biyaa lagu qaatiyo dhakal geed lagu maaliyo xeero dhowr lagu sooriyo mooyihii dhararaaye badarka ku dhambaraayiyo weel dhanbaad ka qortaayoo dhirtu waa nolosheenna haddii waaye la dhowro oo dhuxushaad u gubtaan iyo laga dhowro jariinka kolka aad dhugataaba dhaayuhu kuugu farxaanoo dhirtu waa nolosheenna ugu dambaystana wuxuu geeraarka ku soo gabagabaynayaa meedisyo dardaaran wax uga eg oo uu inagu dareensiinayo inaynaan dhirta ku cayaarin tafiirteenna dambena aynaan dhaxal siin dhul aynu lama degaan u rognay iyo gabaadiir wuxuu kaga baxay dhaxalkeenna dambeetiyo dhaqaalaha waddankeenna marna yaan lagu dheelin dhirtu waa nolosheenna dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa inoo joogo waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo